ciidanka amniga Puntland ee BSF oo ka duulay abaarta ba'an ee saameysay guud ahaan geega Soomaalida gaar ahaan Puntland ayaa gurmad biyo dhaamin ah oo lagu wasamato bixinaya dadka iyo dunyada ka sameeyay deegaanada kale ah geeso qabad kobdhaxaad maroodo ur togal xadiile iyo deegaano kale deegaanadan ayaa waxa ka jirta abaar ba'an oo saameysay dadka deegaanka iyo dunyada waxaana qayla dhaanta abaartu ay ka jirtaa badi dhulka miyiga ee Puntland inta uu socday biyo dhaamisku ciidanka amniga Puntland ee BSF ayaa deeq raashin gaarsiiyay qaar ka mid ah dadka ugu jilicsan ee aan haysan wax ay quutaan dadka xoolo dhaqatada ah ee gurmadku gaaray ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen gurmadkan soo garay waxay u mahadceliyeen ciidanka BSF iyo hogaankooda waxa haysataa waa biyo la'aanta xooluhuna hadeer ka hor waa kala dareerayeen oo waa kala soconayeen laakiin hadeer meelna ma aadi karaan inay wada nool yihiin oo wax yar dhinteen baa laga yaabaa laakiin inayan xirada ka dareerin oo biyo doonan oo ceel aadin baan idin sheegay xoolahana wax loo doonan jiray oo waa iibsan jiray oo tuulaan u laadi jiray oo ka soo gadan jiray oo wax ka biil bay noo ahaayeen oo meelna anagu suruucna ma aadno magaaladana lukuma lihin xoolahaas noo biilaha oo aanu biilan jiray markeeda kale toona waa ceel tagi waayeen oo saasi hadda guriga u joogan u jecleeyeen baa ka dhaba biyo la'aantana ilaahayba kooska oo dhan bayba ka dhacday oo waa ogtihiin oo waa jirtaa marka dhibtaas jira jilaalkaas jira adduunka ba hadeer iskaga baaxsan markii hore haba u kala badnaado laakiin hadeer wada saameeyay ciidanka bees Allah ha kaalmayo rabbigiina war ha kaalmayo garabkoodana Allah ha galo ilaahay garabkooda ha galo guul baan ugu ducaynaynaa meel maraanba iyo nabadgelyo iyo khayr iyo faa'iido weyn oo ilaahay u soo xireeyo annagana waxay noo keenan Allah noo shifayo ilaahay weyn ha noo shifayo iyagana xoogooda Allah u gargaaro ilaahay ha nabadgesho meeshay maraanba ilaahay weyn ha u shifayo ha ku nabadgesho waxa weey anagu maxaad ilaahay waa mahadnaqnay dadka biyaha noo keenay oo bees oo ilaadu ku horeeyay ciidamada taliyayaasha aad iyo aad bay u mahadsan yihiin biyana waana la siiyay raashinka wixii soo gaari karo oo garaama oo hadda tabartooda waana siiyeen dadka waa mahadcelinay aad iyo aad baan ugu mahadcelinay ciidanka amniga Puntland ee BSF ayaa howlgal ballaaran oo lagula dirirayo kooxaha nabadiidka ay al-shabaab waxay ka fuliyeen goobaha ay kaga dhuumaaleystaan buuraleyda calmiska ee gobolka Bari howlgalkan ayaa ka dhacay qarka Xabley dusha sare ee ceelka geesa qabad toga canjeela oo dhamaantood ka tirsan degmada Ufeyn gobolka Bari ee Puntland inta howlgalku socday ciidanka ayaa ceelka geesa qabad ka ciirsaday xubno ka tirsan kooxaha nabadiidka ee al-shabaab oo maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ku dhibaateynayay dadka iyo dunyada ku nool ciidanka amniga Puntland ee BSF waxay har iyo habeen u taagan yihiin xaqiijinta la dagaalanka iyo dabargoynta kooxaha nabadiidka ee ku dhuumaaleysta dhulka buuraleyda ee Puntland